رمضان كريم qaybaha dambe warkana warbixinahan idinku hayno waxa kamida ururka la qeyrta casi caalamiga oo sheegay inay wali gacan siinayaan kumanaan qof oo Soomaaliya si markaasi ay uga soo kabtaan dadkaasi dhibaatooyinkii laxaadka lahaa ee ka soo gaaray dagaalada dabada dheeraad ee dalka Soomaaliya iyo abaarihii wadankaasi ku dhuftay sanadadii 2011 iyo 2012 warbixinaha kale ee idin haynana waxa kamida ururka u dooda xuquuqda aadamaha Amnesty International oo ku eedeeyay dawladda wadanka Greek in si xooga oo qasaba ay dib ugu celiso dalka Turkiga dad fara badan oo qaxootiya oo Soomaalina ay kamid yihiin ase ku bilowna ciidamada midowga Afrika AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa la wareegay inta badan fariisimadii ay baneeyeen ciidamada Itoobiyaanka ee ku yaalay gudaha iyo agagaarka magaalada Baydhabo waxaana la sheegayaa in ciidamada Itoobiyaanku ka bixitaanka halkaasi ay ka baxeen ay ka dambeysay kadib markii dawladda Itoobiya ay sheegtay dhammaanba ciidamadeeda ay kala soo baxayso gudaha dalka Soomaaliya marka hore wariyahayaga Luul Xuseen Cilmi oo joogta magaalada Muqdisho ayaa eegaysa ka bixitaanka ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida la wareegay halkaasi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa inta badan waxa isaga baxay ciidamadii Itoobiyaanka ee ku sugnaa magaalada muddo sanad iyo bar ah wararka aynu ka helayno Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamadii Itoobiyaanka ee ka baxay gudaha magaalada ay fariisimo cusub ka sameysteen degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere oo ka tirsan gobolka Baay waxaana la sheegayaa in goobaha ciidamada Itoobiyaanka ay uga hareen magaalada Baydhabo ay ka mid tahay eelaboorka magaalada Baydhabo fariisimihii ay baneeyeen ciidamada Itoobiya ee ugu waaweynaa magaalada Baydhabo ayaa waxa la wareegay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM waxaana lagu soo waramayaa in ammaanka Baydhabo ay si weyn u adkeeyeen ciidamada AMISOM magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maanta waxa gaaray abaanduulaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan dawladda oo la filayo inay kulamo la qaataan saraakiisha ciidamada AMISOM iyo wariyahayaga Luul Xuseen Cilmi waxa kale oo goordhow ay nooga warrami doontaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya oo booqasho ku tagay wadanka Itoobiya si dawladda Itoobiya ay uga soo xaajoodaan gacanta ay ka sii geysan karayaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya laakiin goobaha ay baneeyeen ciidamada Itoobiyaanka ee gobolka Baay ee ay la wareegeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waraysi gaar oo telefishinka Universal uu siiyay afayeenka ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya Ali Aadan waxa uu kaga warramay sida goobahaasi ay ula wareegeen waxaana waraysigaasi afayeenka la yeelatay wariyahayaga kale ee magaalada Muqdisho Hani Xaaji Maxamuud oo dabadeedna warbixinta noo soo dirtay afayeenka ciidamada AMISOM Korneel Cali Aadan Xumad oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga Universal ayuu sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM ay gaareen magaalada Baydhabo halka oo hore ay ugu sugnaayeen ciidamo ka socda dawladda Itoobiya ciidamadan AMISOM ee gaaray magaalada Baydhabo ayaa la wareegay goobihii muhiimka ahaa ee hore ugu sugnaayeen ciidamada Itoobiya sida uu sheegay afayeenka ciidamada AMISOM Korneel Cali Aadan Xumad tani in badan laga soo shaqeeyay weeyaan oo maanta halka la joogana dhammaan magaalada Baydhabo iyo agagaarkeeda meelo badan oo magacooda ku wada sheegi kareen sida garoonka diyaaradaha kale waa ka baxeen nimanka Itoobiyaanka waa ka baxeen AMISOMna mas'uuliyadii dhulkaasi way kala wareegtay Korneel Cali Aadan Xumad ayaa dhinaca kale sheegay tiro ahaan iyo tay ahaanba ay ku filan yihiin ciidamada AMISOM gobolada dalka Soomaaliya kuwa oo garab ka helaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya maanta ciidamada AMISOM intii ay ka dhaqaaqeen oo dhan marka horena diyaar bay u haayeen dawladda Soomaaliya ciidamadeedana khaasatan iyo wasaaradda difaacana way isla ogaayeen waa arin laga soo wada shaqeeyay lagu wada jirana talaabada marka la qaadayo lagu bedelayo ciidamada Itoobiya afayeenka ciidamada AMISOM waan weydiiyay ciidamadii dhawaan ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow hay'adda UNB xaaladooda hadda sida ay tahay ayaa ku jawaabay dhibaatada halkaasi ka dhacdo waxa lala maaganaa ciidanka AMISOM taasi shaki kuma jiro
ayaan daro ciidanka amisom isaguna mas-uuliyadiisii intii uu ilaalin karayay uu ilaaliyay shacabka intii uu gacantiisa ka ilaalinay uu ka ilaaliyay maqaadiirta halkaasi ka dhacday 2 nin oo dhaawac khafiif ah way ku cawurmeen oo amisoma say u cawurmeen haddii la yidhaaho dee niman dibadda laga helay maahane baabuur yaroo baabuur weyn jiiray markii dambena ku qarxay buu ahaa ninkaasi isagaa jannadu doonayo tegey jannadu sheegayo tegey laakiin ninkaasi halkaa isku halaagay ku googo'ay shacabka Soomaaliyeed ee dikadda iska socday iyuunbu ku dhibaateeyay baryaha barakaysan ee Ramadaanka. Ani Xaaji Maxamed, Universal TV, Muqdisho. haddaba wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya si saraakiisha dalkaasi ay wala soo xaajoodaan sida ciidamada Itoobiya ay uga sii qayb qaadan karayaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya maadaama sidii hore Itoobiya ay u sheegtay ciidamadeeda imika ay ka baxayaan dalka Soomaaliya mar kale aan idinku celiyo wariyahayaga Luul Xuseen Cilmi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa maanta waxay u ambabaxeen magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya oo ay kulamo kula soo qaadanayaan madaxda wadankaasi iyo saraakiisha ciidamada Itoobiya oo ay kala hadlayaan arrimaha amniga iyo sidii Itoobiya ay gacan uga geysan lahayd la dagaalanka Al-Shabaab. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan ku sii socdaa anigii wafdigaygaba magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya booqashadeedina waxay la xiriirtaa sidii caadiga ahayd bal inaan sii xoojino xiriirka iyo iskaashiga labada wadan iyo gaar ahaan inaanu ka wada hadalno arrimaha la xiriira amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab. intaan joogana halkaasi Addis waxaan la kulmi doonaa madaxda sarsare ee wadanka Itoobiya iyo gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiishooda taliyaasha ciidamadooda intaba. militariga Itoobiya ayaa Soomaaliya waxa ay uga sugan yihiin gobolada Hiiraan, Gedo iyo Baay iyo Bakool. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. wali waxaynu ku jirnaa wararka magaalada Muqdisho ee wasiirka wasaaradda warfaafinta, boosaha iyo isgaarsiinta ee dowladda Soomaaliya Cabdilaahi Ciilmooge Xirsi ayaa ka hadlay in loo baahan yahay in muddo 45 maalmood gudaheeda saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha dalka Soomaaliya ay iska diiwaan galiyaan dowladda Soomaaliya. saxaafadda markii uu la hadlayayna waxa nooga soo waramay wariyahayaga Cabdicasiis Okay. wasiirka wasaaradda warfaafinta, boostada, isgaarsiinta iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi oo shir saxaafadeed warfidiyeenada uu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho waxa uu sharaxaad kaga bixiyay xeerka warbaahinta oo dhawaan ay ansixiyeen golaha wasiirada ayna horgeyn doonaan baarlamaanka Soomaaliya. wasiirka warfaafinta ayaa intaa ku daray in ay ka go'an tahay in la dhowro xuquuqda saxaafadda isagoona xusay in xeerka saxaafadda ee dhawaan ay meel mariyeen ururada saxaafadda ay kala tashteen oo ay u qabteen shirar ay talooyinkooda xeerka ay wax ugu darsanayaan. Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wixii talooyin ah ee xeerka warbaahinta lagu darayo baarlamaanka iyo wasaaradda warfaafinta ay ku darayaan. wasaaradda waxaa ka go'an warfaafinta inay dhowrto xorriyadda saxafiga inay dhowrto sida ku cad dastuurka qodobka 8. waxaan rabaa oo kale inaan idiin sheego runtii waxaa ku yaala qodobo aad u qiimo badan baa ku yaala oo dhowraya xuquuqda saxafiga. مثلا saxafigu waa inuu helaa qaabka loo qorayo waa inuu yahay qaab nidaam shaqadii shaqaalaha kala waa inuu fasax leeyahay waa inuu caafimaad leeyahay waa inuu leeyahay muxuu ahaayay xilligii maternity leave umul xilli umad leeyahay waa in xuquuqda bani aadamku leeyahay waxaa jira GSQ waxa weeye golaha saxaafadda waxaan sameynay qaranka oo idinku member aad ka tihiin saxaafaddu ka tahay sharcigan wasaaraddu ma sameyn waad la sameyseen saxaafaddu way la sameysay saxaafadda qaranku meel bay joogto way la sameysay waayo codkeedii taladeedii baa ku jira. ugu dambeyn shirka jaraa'id ee wasiirka warfaafinta, boostada, isgaarsiinta iyo gaadiidka Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi ayaa ugu baaqay in 45 cisho muddo dhan ay isku soo diiwaan geliyaan warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dalka. maadaama sharcigan golaha wasiirada laga ansixiyay oo uu hadda u socdo yaalo baarlamaanka wixii
كدمن أما استحيطان الله أركو وحاكو درية برلمان كاكو درية انتسون قد بين وقدام بين مركو عن سحانة مدهوينه وقد بيا هدي ولي أي وحشران هالكاس هذانا مركو هذا قاتان إن وإنتاس أو مرحلة ومرحيو شرعي قانو والسنة قاعدة هاي دولة هان إنه مال مرسان دد كنا يدل كنا عن حلكودا صحافة ده إسكارسينات عن صحافة ده قاضنا وقدام بين حنروينا نيشة ودمان صحافة قرنك مال بيت شوغان وده أفتن إيشان عشاء إن تسكدي وإنجليزان وزارة ورفافنتا إسكارسينتا إجايد كإركدولكو وحيرتا أنا نيشة أكتر لقبل الله هذا hadalkani ka soo baxay wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku aadan in gabi ahaanba ay soo diiwaan galiyaan warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya ayaa imaanaya xilli dhawaan golaha wasiirada ee Soomaaliya ansixiyeen xeerka warbaahinta Soomaaliya iyadoo dhawaan loo gudbin doono baarlamaanka Soomaaliya si ay u meel mariyaan Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okey TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya telefishanka Universal Studios magaalada London warbixinaha kale weli inoo soo socdana waxaa kamid ah ururka u dooda xuquuqda aadamaha Amnesty International oo ku eedeeyay dawladda wadanka Greek in si khasaba ay dib ugu celiyaan dad fara badan oo doonayay inay magan galaan dalkaasi oo damacsanayna ka soo galaan dhinaca wadanka Turkiga waxna ay sheegeen in dhibaatooyin iyo xadgudubyo loo geysto dadkaasi ururka ICRC samafalkuna waxa ay sheegeen inay weli gacan siinayaan kumanaan qof oo Soomaaliya si markaasi ay uga soo kabtaan dhibaatooyinka ay soo gaarsiiyeen dagaalada muddada dheer ka socday dalka Soomaaliya iyo abaarihii ku dhuftay dalkaasi sanadadii 2010 ilaa 2012 horaantiisii warbixinahaasi ayaa weli inoo soo socda iyo weliba magaalada Nairobi ee wadanka Kenya xaafadda Soomaalidu ay ugu badan yihiin Isli oo lagu qabtay shir lagaga arinsanayo sida wax looga qabanayo dhibaatooyinka baan ee nadaafad darrada ee ka jira degmada Isli balse aan ku horeynay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee Somaliland ayaa ku biiray codadka dhawaanaha soo baxayay ee lagu diidanaa ururka dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee la magac baxay ururka wada tashiga iyo toosinta qaranka ee Somaliland inkastoo fikrado kala duwan dadku ay ururkaasi ka qabaan haddana waa shir jaraa'id oo uu qabtay Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu ku sheegay inuu arrintaasi isagu ka soo horjeedo wariyaha iyaga nooga soo warrama magaalada Hargeysa Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warbixintan inoo haya gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta ka hadlay fikirkiisa ku aadan golaha dhawaan lagu dhawaaqay ee lagu magac daray golaha madaxa bannaan toosinta ee wada tashiga qaranka maruu maanta u warramiyay TV-ga caalamiga Universal ayaa waxa uu sheegay gudoomiyuhu in xubnahaasi siyaasiyiinta ay ku dhawaaqay golahaasi ay yihiin xubno miisaan ku leh Somaliland isla markaana talada ay soo jeediyaan la qaato balse aanay sharciga meel kaga oolin gola saddexaad de wadanku shuruuc buu leeyahay oo dastuur buu leeyahay golayaasha sharciga ah waxa xadiday dastuurka iyo shuruucda dalka laakiin odayaashaasi waxay ka mid yihiin odayaasha ama hal doorka Somaliland dadkii u soo halgamay siyaasiyiin caana marka wixii tala ay u soo jeedinayaan de xukuumadda iyo axsaabta waxaan qabaa in la soo dhaweeyo oo wixii tala ay hayaan laga qaato laakiin de urur ama xisbi afraad ama golo kale oo sharciya oo tilmaamayo dastuurku ama xeerku ma jiro laakiin waa odayaal mudan oo qadarin naga mudan oo tala hadday hayaan xukuumadda u soo jeediyaan axsaabta qaranka way soo jeedin karaan way ku soo biiri karaan halkaas de axsaabta waa golayaal sharciya oo forum sharciya waxay xoojin karaan haddii mucaarad xoojinayaanna mucaaradka xoojin karaan tan iyo intii lagu dhawaaqay golahaasi madaxa bannaan ayaa bulshada reer Somaliland ayaa waxay ka bixinayaan fikirro kala duwan Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen TV-ga caalamiga Universal
boqolaal kun oo qof oo Soomaaliya ayaa weli la daaladhacaya sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkii baaxadda lahaa ee ka soo gaadhay dagaalada dabada dheeraaday ee dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka iyo riiqdii ay kaga tageen dhibaatooyinkii dabiiciga ahaa ee daadadka iyo abaaru ay ka mid ahaayeen ka dhacay dalka Soomaaliya warbixin maanta magaalada Nairobi ay ka soo saareen hay'adda gargaarka ee Laanqeyrta Casi ayaa waxay ku sheegeen in iyaga oo ay iskaashanayaan hay'adda Laanqeyrta Cas aan idhaahday hay'adda bisha cas ee Soomaalida ay dadkaasi dhibaatooyinku la soo darseen gacan ka siinayaan sidii mar kale ay cagahooda isugu taagi lahaayeen warbixinta ay soo saartay hay'adda Laanqeyrta Casi ayaa waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Saciid Saxaaf ururka Laanqeyrta Cas ayaa sheegay in 6 bilood ee ugu dambeysay in boqolaal kun oo qof oo Soomaali ay wali haystaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray abaarihii sanadihii 2011 ilaa 2012 ku dhuftay Soomaaliya ayna iminka caawinayaan dadka dhibaataysan waa ururka Laanqeyrta Cas iyo hay'adda bisha cas ee Soomaaliya oo si wada jir isku kaashanaya waxa wali jira daadad saameyn weyn ku yeeshay dadka ku nool gobollo iyo deegaano kala gedisan oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay gobolka Hiiraan taniyo bishii January ayaa 78 kun oo qof oo Soomaaliya ayaa waxa barakiciyay daadad ka dhacay gobollo iyo deegaano kala gedisan oo Soomaaliya ku yaal hay'adda bisha cas ee Soomaaliya oo gacan ka helaysa ururka Laanqeyrta Cas ee caalamiga ayaa waxa ay sheegeen inay talaaleen ama daaweyn ay gaarsiiyeen waa xagga xoolaha in ka badan 308 kun oo xoolaha waxa kale oo la badbaadiyay dhul beereed ay daadadku burburin lahaayeen oo ay ku noolaayeen dad gaaraya 33,500 oo qof waxayna ururka Laanqeyrta Cas ay sheegtay isla markaana ay ku celcelisay oo xustay in boqolaal kun oo qof oo Soomaaliya ay wali haystaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray daadadkii sanadihii 2011 ka dhacay ilaa 2012 dalka Soomaaliya Maxamed Saciid Saxaaf Universal TV London haddaba dhibaatooyinkaasi kala duwanaa ee muddada ka badan 20 sanadood ka dhacayay dalka Soomaaliya waxay keeneen in boqolaal kun oo qof oo Soomaaliya ay ka cararaan dalkooda kuwa haddaba ugu dambeeyay ee imika soo beegsanaya wadanka Greega ayaa waxa la sheegayaa in dawladda Greegu si khasab ah ay ugu celinayso dalka Turkiga oo badanaa ay dadkaasi ka soo tallaabaan ururka u dooda xuquuqda aadamaha Amnesty International ayaa warbixin toddobaadkan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dawladda Greegu ay si khasab ah dib ugu celinayso dadka qaxootiga ah ee dalkeeda ka soo galaya dhinaca wadanka Turkiga dadkaasi qaxootiga ah ayaa ururka Amnesty International waxa ay sheegayaan in badankoodu ay ka imanayaan wadanka dagaaladu ay ka aloosan yihiin Soomaaliya iyo Afghanistan iyo waliba wadanka Suuriya warbixinta Amnesty oo ka kooban 40 bog ayaa waxa lagu sheegay oo kale in Greegu ay iska hortaagayaan dadkaasi qaxootiga ah xuquuqdii markaasi ay u lahaayeen inay magangeliyo weydiistaan dalkaasi waxaana warbixintaasi lagu soo qaaday halisaha soo food saara dadka qaxootiga ah marka ay doonayaan inay u soo gudbaan dhinaca dalka Greega iyagoo ka imanaya dalka Turkiga warbixintan ururka Amnesty International ayaa waxa kale oo lagu sheegay in ay diiwaan geliyeen ilaa 39 dhacdo oo kala duwan oo ku saabsan xadgudubyo baan oo loo geystay dadka qaxootiga ee isku dayay inay u soo tallaabaan dhinaca dalka Greega waxaana dadkii ay xog wareysteen ay u sheegeen Amnesty International in xadgudubyada loo geystay ay ka mid yihiin in askarta Greegu ay dadkaasi furtaan oo ay dhacaan oo ay kana qaadaan alaabooyinka ay sitaan mararka qaarkoodna ay badaba ku tuuraan dadkaasi sida uu sheegay Jessica Tagniri oo ka tirsan ururka Amnesty International waxa ka dhacaya soodimaha wadanka Greegu ma aha uun qaar ceeb iyo wajigabax ku ah wadanka Greega oo kaliya ee sida uu sheegay waxa weeye qaar sumcad xumo ay uga imanayso dhamaanba wadamada midowga Yurub wahagaagintaasna waxaanu ku dhaafaynaa warbixintii ay soo saareen ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ee ay kaga hadlayeen dhibaatooyinka loo geysto dadka qaxootiga ah ee doonaya inay soo galaan wadanka Greega iyagoo markaasi ka imanaya dhinaca wadanka Turkiga wali waxaad nagala socotaan telefishanka Universal Studios-hiisa magaalada London xaafadda Soomaalidu ay u badan yihiin magaalada Nairobi ee Eastleigh ayaa inta badan waxa la tilmaamaa in marka ay timaado dhinaca bilicda ay aad iyo aad uga liidato qaybo fara badan oo kamid ah magaalada Nairobi inteeda kale
haddaba dadka Soomaalida ayaa shir halkaasi imika ku yeeshay si markaasi ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka nadaafad darrada ee haysta degmada Islii wariyahayaga Xamdi Maxamed Kadiye ayaa ka waramaysa maanta ka dhacay xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay oo ay wali ka soconayaan howlo dib loogu dayactiraya wadooyinka burbursan ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa nadaafadda xaafadan oo aad u liidata iyo amniga waxaana kulankan ka soo qayb galay ciidamada amniga iyo xubnaha ka tirsan maamulka xaafadda Islii iyadoo ujeedada ugu weyn ay ahayd sidii la isaga kaashan lahaa nadaafadda xaafadan. Nikamuuliza mwenyewe, do you have the capacity, because kile kinatusumbua hapa na kimekuwa changamoto yetu ni capacity. That is the challenge, that is our undoing. The population ambayo iko hapa Islii ni kubwa kupita hata ya building na kila kitu kiko hapa. Na ndio unaona hata maji, unaona kuna maji hata ya mulika mwizi. Kama ni stima, hata kuna stima ya mulika mwizi. Hata sewage, kuna sewage hata ya mulika mwizi. Yeah, because the capacity ile tulikuwa naye imekuwa tuko wengi kuliko hiyo ilikuwa imejengwa. So ndio nikauliza yeye, ndio huyo amekuja, capacity uko naye. Ndio sasa nikamwambia kule atasaidika zaidi. Mamlaka ya garbage na environment imepewa mamlaka ya county governments. Wacha aende huko, sisi tutakuja huku mashinani kumsaidia, kwa sababu hata kama ni mamlaka ya county government, we are not withdrawn, we are part and parcel of those problems. Inaan gacan is wada siino, saaxiibo noqono, oon garab siino, xaafadan aan ka dhigna xaafada ugu nadaafad badan magaalada Islii. Taasna maxaa lagu helayaa dhammaanteen oo is caawino, garab siino, oono xaafadanayta sida xaafadaha weyn aan ka dhigno. Kambaniga anaga ka xaafadan waxaan u tirigalnay inaan sameeyno dustbin-yaal oo wadooyinka la dhigayo sidii qafka markuu nanacuno qardaasta mooska cuno wadada socdo oo ku ridi pingasayta baawarka anaga uu soo maro caadi loo saar sidii loo waayo wadadaanayta hal waraaq oo wadada taal boosneeriyaasha wax walba inaan ka hagaajino oo xaafada lagu sheega magaalada Nairobi Islii san ma ahan jirine maxaa iska bedelay. Xamdi Maxamed Kadiye, Universal TV, Nairobi. hagaag bal hadda ugu dambeyntiina aan eegno arrin ka duwan kuwaasi hore haddii aad maqli jirtay in dawladuhu ay dadkooda afti ka qaadaan marka ay doonayaan inay eegaan aragtida ay ka qabaan ama sida ay ugu qanacsan yihiin hadba siyaasadda ay dawladdu ku socoto. duqa magaalada Vilnius ee magaala madaxda waddanka Lithuania ayaa isagu soo saaray arrintaasi ka duwan, waxaana uu sheegay si markaasi uu uga qiyaas qaato sida ay dadka magaaladaasi u faraxsan yihiin ee ay ula dhacsan yihiin siyaasadaha uu magaaladaasi ku wado iyo haddii dadku ay muraad dilaaciyeen oo siyaasadihiisa ay ka niyad jabsan yihiinba inuu ka ogaanayo dadka qudhooduna ay ka ogaanayaan shaashad aad u weyn oo lagu rakabayo magaalada bartankeeda. shaashadaasi ayaa waxa afti lagaga qaadayaa la yiri maalin walba 520,000 oo qof oo magaalada Vilnius degan, waxaana dadku email amaba fariimaha telefoonada gacanta ee taxka loo yaqaan ay ku soo dirayaan sida hadba farxadoodu ay tahay iyo sida nolosha magaalada ay u arkaan iyo siyaasadaha mayorka cusub ama duqa magaaladu uu ku socdo. waxaana duqa magaalada oo la yiraahdo Arturas Sukas uu sheegay in marka haddii wax qaldan yihiin uu siyaasadiisa wax ka bedelayo haddii dadku ay faraxsan yihiin oo niyadoodu ay wanaagsan tahayna siyaasadaha uu sii wadayo. waxaana la tilmaamayaa in saadaalo hore la qaaday waddanka Lithuania meelaha ugu hooseysa uu ka galay marka la eegayo dadka wadamada adduunka iyo sida farxadoodu ay tahay. waxaana la sheegayaa in daraasadda hore la sameeyay halka 58aad uu waddanka Lithuania ka galay wadamada caalamka oo ay ka liiteen wadamada Serbia iyo dhulka Falastiiniyiinta, Masar, Romania iyo dhowr wadan oo kale. waana arrintaasi baan u malaynayaa ku kaliftay imika duqa magaaladaasi inuu sameeyo shaashadan weyn ee laga qiyaas qaadanayo sida dadka magaaladiisu ay u faraxsan yihiin. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii caalamka oo ay idin kala socoteen stuudiyaha telefishanka Universal ee magaalada London oo maanta aad u kululayd dadkeeduna badankoodu ay ku faraxsanaayeen arrintaasi. intaynu dib u kulmayno waa Cabdisalaan Hereeri oo idinku dhaafay intaas iyo nabadgelyo.